بسم الله الحمد لله waxaa maanta booqasho ku yimid oo nagu soo booqday magaalada Washington oo booqasho shaqo ah ku yimid ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha waxa uu u yimid ka qaybgalka shirarka sanadlaha ah ee IMF-ta iyo World Bank ay isugu imanayaan waxa ugu weyn oo shirka Soomaaliya ay ku leedahay ugu muhiimsan oo ra'iisul wasaaraha u yimid waxa weeyaan in uu ka qanciyo adduunka deyn cafinta Soomaaliya deymaha lagu leeyahay oo caalamku uu ku leeyahay kaas oo runtii meel aad u fiican maraya ra'iisul wasaaraha saaka markuu yimid shirarkiisii ayuu bilaabay waxaana uu kulamo kala duwan la yeeshay wufuud wada jir ah oo caalami ah iyo kuwa gooni ah dawladaha ahba dawladda Canada ayuu shir la yeeshay waxa uu kale oo shir la yeeshay madaxweynaha World Bank waxa kadibna uu shir la yeeshay dawladda Mareykanka hay'adaheeda State Department-ga iyo USAID galabta ra'iisul wasaaraha waxa uu leeyahay waxa uu kale oo la kulmay dawladda Ingiriiska delegationkeeda halkan ama wafdigeeda oo ayaga ahaan doona dadka shirkan shir gudoonka iska leh dhici doona galabta oo Soomaaliya looga hadlayo oo round table-ka ah galabta ayuu shirka dhici doona caalamka dhanba ayaa isugu iman doono ra'iisul wasaarahana waxa aan ka filaynaa inuu khudbad dheer oo arinta ku saabsan uu meesha ka jeediyo waxa kale oo ra'iisul wasaaraha ka soo horeeyay wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha bangiga dhexe iyo wufuud ay hogaaminayeen oo ayaga maalmahanba ra'iisul wasaaraha magaalada uga soo horeeyay oo shirar kala duwan oo ku saabsan waxa uu ra'iisul wasaaraha arrimaha uu yimid oo halka ka sii waday shirkaas sida ayuu u socon doonaa maanta kuma eka berina shirar dheer oo maalintii oo dhan ilaa iyo subaxii ilaa iyo habeenkii soconayo ayaa ra'iisul wasaaraha iyo wufuudiisu ay yeelan doonaan ayaga oo la kulmayo wasiirada maaliyadda ee wadamada G7-ka la yiraahdo ama toddobada adduunyada ugu dhaqaale badan isaga oo ra'iisul wasaaraha la shiri doono iyo hay'adda maaliyadda ee dawladda Mareykanka iyo